kusoo dhowaada main public news connect wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha main oo ku baxaya afafka isbaanishka faransiiska bortugiiska soomaaliga iyo af ingiriiska. bismillahi raxmaani raxiim. galab wanaagsan daawadayaal, maanta waa maalin jimcaha bisha maajana ay tahay 23 waxaanan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan uu idinla socodsiina anigoo maxamuud xasan. wararkii oo kooban. ilaalada xuduudaha dowladda maraykanka oo dad xidhxidhay qandaraasyo ku saabsan nidaamka socdaalka, dacwado federaala iyo weliba lacagta laga gooyay daryaalka caafimaadka. haddana kusoo dhowaada wararkii oo faahfaahsan. ilaalada xuduudaha oo dad xidhxidhay. ilaalada xuduudaha dowladda maraykanka ayaa waxay sheegeen inay qabteen 113 qof bishii abriil oo ay ku qabteen gobolkan Maine bishii abriil aan soo dhaafnay, taasoo ah tirada ugu badan ee hal bil dad lagu qabtay 24 sano ee aan soo dhaafnay. wakaaladdu waxa ay sidoo kale ay sheegeen inay kala shaqeeyeen ICE sidii maxaabiista qaar ka mida loo geyn lahaa gobollo kale. daboor qoraal oo ay sii daayeen toddobaadkii hore ayaa ilaalada xuduuduhu waxay ku sheegeen inay korarka qabqabashada dadkaasi uu ka dhashay iyadoo dardar la geliyey sharcigii socdaalka ee gobolka oo ayna jirin dad soo kordhay oo cusub oo xuduudaha si sharci darra uga soo gudbayay. waxayna markaa wakaaladdu sheegtay in horaantii usbuucan ay ICE kala shaqeeyeen in 29 ka mid a dadkaas la qabtay laga duuliyay Portland iyadoo loo sii gudbiyo goobo kale oo Maraykan ka mid ah, inkasta oo dadkaas aan markaa la xadidin. haddaba muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada Arbacadii aan soo dhaafnay waxay muujinayaan dadkaas dad ka mid ah oo gacmaha iyo lugaha ka xidhan oo diyaaradaha garoonka diyaaradaha ee magaalada jooga, islamarkaana jaranjaro ku fuulay diyaarad iyadoo ay hareeraha ka taagan yihiin askarta ilaalada xuduuduhu. qandaraasyada ama heshiisyada ku saabsan arrimaha socdaalka. sharci dejinta Maine ayaa waxay toddobaadkan dhageysteen marag fur dadweyne oo ku saabsanaa soo jeedinta 2 xeer oo la doonayay in lagaga hortago in hay-adaha fulinta sharciga ee maxalliga ay heshiisyo la geli karaan hay-adaha socdaalka ee dowladda federaalka. waxaa haddaba kulankan uu qabsoomay iyadoo ay jirto in laanta socdaalka iyo dhaqangelinta kastamyada ama ICE loo yaqaanay ee heshiisyo la gashay boqolaal ka mida jeelasha iyo hay-adaha fulinta sharciyada ee degmooyinka waddanka oo dhan si ay markaa uga qayb qaataan barnaamijka u oggolaanaya saraakiisha maxalliga inay fuliyaan qaar ka mid a nidaamyada ama sharciyada socdaalka ee dowladda federaalka. Wales ayaa magaalada keliya Maine ku taalla iyadoo heshiiskaas barnaamijka ka qayb qaadatay. taageerayaasha haddaba hindisahan sharciyeed ayaa waxay sheegayaan in xeerkani uu badbaadin doono dad badan oo soo galeetaya, islamarkaana uu hay-adaha amniga u suurtagelin doono inay awoodda saaraan amniga deegaankooda. dadka iyuu kasoo horjeeda xeerkan la soo jeediyey ayaa waxay sheegayaan inay arrintani ka hortegi karto iskaashi dhex mara hay-adaha maxalliga ah iyo dowladda federaalka, islamarkaana waxay sheegeen inay arrintani ay walaac ka muujiyeen in awoodda ay ka qaadi karto degmooyinka, islamarkaana awoodda sharci dejinta iyo fulintaba ay u wada gacanta u gelinayso dowladda gobolka. dacwad federaali ah. xeeryaalaha guud ee gobolka Maine Aaron Frey ayaa wuxuu ku biiray 2 dacwadood oo ka dhana maamulka madaxweyne Trump oo ku saabsan in uu maalgelinta qaarkeed uu maamulku ay bixiso waaxda gaadiidka iyo amniga guduhu ku xidhay in gobolladu ay marka hore meel mariyaan sharciyada socdaalka dowladda dhexe. dacwadahan ayaa waxa ay ku doodayaan in maamulku uu ka tallaabsaday awooddiisii sharci kadib markii uu ka dalbaday in dhammaan hay-adaha dhaqaalaha ka hela dowladda federaalku ay la shaqeeyaan labadan hay-adood kalana shaqeeyaan dhinaca fulinta sharciyada socdaalka ee dowladda federaalka. dacwadan haddaba ka dhanka ah wasaaradda gaadiidka ayaa waxay gobolladu ku sheegeen in xogeyaha gaadiidka Sean Duffy uusan cuskan wax sharciya markii uu bishii hore ku dhawaaqay go-aankan, isagoo ku daray xoojinta sharciyada socdaalka ee dowladda dhexe inay tahay mid ka mid a shuruudaha laga rabo in si loo helo
markaa maalgelinta federaalka. waxay gobolladani sheegeen in wasaaradda amniga guduhu sidoo kale aysan bixinin wax caddayn oo sharcigan ah oo ay ku taagan yihiin shuruudahan cusub iyo kuwa la midka ahi, iyaga oo markaasna ku tilmaamay ficiladan wasaaraddu ay samaysay inay yihiin maalgelinta oo madax furasho loo haysto. dowladaha gobolladu waxa ay ku doodayaan in shuruudaha maamulku soo rogay ay kasoo horjeedaan dastuurka dowladda dhexe ee Maraykanka, kaasoo isagu siinaya awoodda maamulka kharashaadka dowladda dhexe inuu ay toos gacanta ugu jiro oo ay awood u leedahay Congressku leeyahay. lacag laga goynayo caafimaadka. sharci dejiyaasha gobolka ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa waxay ka hadleen soo jeedinta dowladda federaalku ee la sheegay in la doonayo in lacag laga gooyo Medicaid, kaasoo gobolkan Maine looga yaqaano Mainecare. haddaba koox la yidhaahdo Protect Our Care ayaa waxay sheegeen in dhimista lasoo jeediyay ay keeni karto in caafimaadka laga gooyo 325,000 oo qof oo reer Maine oo ay ku jiraan ku dhowaad 2 meelood oo meel caruurta gobolka Maine oo dhan, kuwaas oo qaata Mainecare. sharci dejiyaashu waxay sheegeen in dhimista Medicaidku sidoo kale uu dhaawici karo isbitaalada, kuwaas oo ay soo waajaheen dhibaato kharash. sharci dejiyaashu waxay sidoo kale qayladhaan ka muujiyeen iyadana shuruudaha la doonayo in dadka Medicaidka qaatay ay shaqo ku raadsadaan, taasoo ay sheegeen in dhibaato u geysan karto dadka reer Maine ee barnaamijkan ka qayb qaata. daawadayaal, halkaad nagala socoteen waa Maine Public News Connect. intaasi sarag dambe waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Koo iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan isu soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajio. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Maine Housing, waxaan ogsoonahay in lahaanshaha guryuhu ay yihiin furaha horumarka. barnaamijkayaga iibsiga guriga ugu horeeya waxa uu leeyahay deyn dulsaar hooseeya leh iyo kaalmo lacagta horumariska ah ee guryaha qolalka badan leh. faahfaahin dheeraad ah ka ogow mainehousing.org. waxa aad isbarbardhigi kartaa caymisyada, waxaanad ka heli kartaa kaalmo dhaqaale coverme.gov oo ah meel laga helo caymiska caafimaadka ee la raqiisiyey si aad hoos ugu dhigto qiimaha aad bixinayso. shaqo wanaagsan baa halkan laga helaa. barnaamijka Maine Apprenticeship Program waxay ku siinayaan shaqo ku tababar lacag lagugu siinayo. wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir maine.gov/apprenticeship.